qodobkaas waxa ay u heliyeen waxaan dhahnay musiibada ka dhacday Turkiga iyo midda ka dhacday Syria waa musiibo rabbaani ah midda laas ana ka dhacday maxaa ku macnaynaa magaceed taas magaceed iyada culimada inay ka jawaabaan fiican laakiin taasina waa musiibo tanna waa musiibo kale waa laba musiibo marka waxaynu u baahannahay sidaad ogtihiin waxaan xusuusanaa 1988 wixii ka dhacay gobolada waqooyi 3 shay ayaa dhacday dad shacab ah oo nidaamkoodii xukumayay ama dowladoodii xukumaysay ay duqayso dadna ay layso kadibna ay qaxayso 3 arrimood baa dhacay dowladii dadkii way duqaysay way dhinteen wayna qaxeen intii noolay xilligaas suurtagal ma aha marka ama wax in la isweydiiyo mudan waxay tahay 35 sano kadib maxaq baa isla dadkii reer waqooyi ee Soomaaliyeed inay arkaan haddana nidaamkoodii oo saddexdii sameynaya oo duqeynaya oo dilaya oo qaxinaya waxaan filayaa inaysan xaq ahayn inay walaalaheen mar kale arkaan haddana scenario-goo dib u soo noqdo xaqu ma laha carabtu waxaa jira mahmaah ay leeyihiin oo la yidhaahda maa ashbaha alleyla bilbaarixa xalay iyo caawa isu ekaa inay isu ekaadaan mar walba xalay iyo inay isu ekaadaan mar kasta waa nasiib daro haddaan Soomaali nahay goormaan ka gudbaynaa amaan ku qancaynaa inaynaan xoog isku qamcin karin horta meel kastaba aan joognay dadka Soomaalidu waa in caqligeennu uu soo gaaro inaan gaarno war ma kala adkaan karno weligaaba idil weligaaba waxaa rabta samee annagu xoog iskuma qancin karno waxa keliya aan isku qancin karna waxa weeye inaan ishor fadhiisano oo inagoo walaalaa aan wada hadallo oo aan dhahno maxaad doonaysaa maxaad rabtaa maxaa kaa qaldan taa keliya ma isku qancin karnaa waxa meesha yaalla ee muhiimka waxay tahay gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed goormuu ku kalsoonaanayaa dowlad Soomaaliyeed sideeda goormuu ku kalsoonaanayaa wiilka ama gabadha Soomaaliyeed dowlad Soomaaliyeed goormaa lagu kalsoonaanayaa goormaa lagu kalsoonaanayaa qori uu wato askari Soomaali goormaa lagu kalsoonaanayaa haddayba suurtagal tahay inuu maalin walba uu qasbi ku sameeyo oo uu madaafic ku garaaco oo uu dilo oo uu qixiyo hadday maalin walba iska si sahlan ay ku dhici karto goormaa dowladnimo lagu kalsoonaanaya sharciga xajiye oo waxaa celiyay muxuu noqonayaa see loo helaa wax damiir waxaa ilaaliya see loo helaa oo Soomaaliya dowladnimada Soomaalidu dowladda waxay ku reyn lahayd يعني أود الدولة النمو دي يا قدام معنا القاعدة يعني إنك واحد كتبين ماشي الدولة النمو ضدك الصومالي لو كري لا هو ماشي مركا إني ده إسكابها هيان أو دائما الدولة النمو ده الضعيف فيه أو قبيل كلير وين هي سو كمان مقناس هذا ما لو كل سنة الدولة النمو دي وكل اللي بكتير يسوي قدام بس حرب عنا هاي sideedaba dowladnimadeena si loogu kalsoonaado waa inay hesho cid gacmaha qabto oo xajisa oo qori la American laga dhigaal rabo waxaan ku talinayaa soo jeedinayaa marka koowaad
waxaan aada iyo aada usoo dhaweyneynaa xabad joojinta ay ku dhawaaqday dowladda Somaliland. aada baan usoo dhaweyneynaa. waxaan kaloo soo dhaweyneynaa sidoo kale ayaguna inay aqbaleen garaadyada iyo odayaasha iyo dadka deegaanka reer Laascaanood iyadana inay aqbaleen. aada baan usoo dhaweyneynaa. waxaan se leenahay si xabad joojintu ay cagaf fiican ugu istaagto, si ay u noqoto mid hirgasha, waxaa lagama maarmaana in ciidamada laga fogeeyo meesha ay joogaan shacabku, magaalada laga saaro, dadka caraysan ciidamada laga fogeeyo. taasaan soo jeedinaynaa si ay u noqoto mid caga ku taagan oo saxa. waxaan soo jeedinaynaa oo kale in dadka deegaankuna ay aqbalaan xabad joojinta oo ay ogolaadaan oo u diyaar garoobaan waxa ay tabanayaan in ay si nabadgeliyaan iyo walaaltinimo ah iyo miis korkiisa inay la yimaadaan. guud ahaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ka qayb qaataan nabadgelyada iyo deganaanshaha Laascaanood iyo deegaanka Sool, oo aan la hurinin, dab lagu shidin, la isku dirin dadka Soomaaliyeed. waxaan soo jeedinayaa in la ilaaliyo walaaltinimada iyo derisnimada iyo ahalnimada. waan bogaadinayaa dhammaan cid kasta meel kasta oo ay joogaanba, ama Somaliland ha joogaan ama adduunka meesha rabaan ka joogaan ama jamhuuriyadda inteeda kale ha joogaan, dadka Soomaaliyeed ee wanaagga iyo walaaltinimada iyo ahalnimada ku dhawaaqaya ee ku baaqaya ee dadka isu keenayana waan soo dhaweynayaa. waxaan mar kale ku celinayaa in waajib tahay in si degdeg ah loo joojiyo xabadaas oo ayna mar dambe soo noqonin. waxaan rabnaa iyadana in la ogolaado in hay-adaha gargaarka iyo cid kasta oo dadka wax taraysa in loo ogolaado inay gaaraan dadka baahan ee duruufaysan si ay u gargaaraan. taasna waa laga maarmaan.